يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبيه الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. walaalayaal khudbaddan waxaynu kaga warramaynaa arrin ay tahay inaynu mar walba qalbiga ku hayno oo ah geerida iyo waxyaabaha la xidhiidha. arrimaha adduunyada in badan ba ka soo hadalay. marka xoogaa arrimaha adduunyada laga hadlo waa laga maarmaan safarka lama huraanka aan in laga hadlo. mowduuceenu waxa weeye xusnul khaatima wa calaamaatuha wa asbaabuha. khaatumada qofka oo ilaahay u wanaajinayo calaamadaha ay leedahay iyo sababaha lagu helo. waayo dadku had iyo jeer markay shaqooyin soo gabagabaynayaan ama imtixaan loo diyaargaroobayo nihaayadda aad baa loogu dadaalaa arrimaha adduunyada. marka tanaa ka sii mudan waxyaabaha calaamooyinkaasi ma aha in lagu haleeyo ama lagu fudaydsado camalkii waynu samaynaynaa, dadaalkeennii waynu wadaynaa. inagoo dadaalkii adduunyadan aynu samaynayna iyo camalkii khayrkii wadna, haddana qofka ilaahay calaamadaha uu waafajiyo rajo wanaagsan baynu u qabnaa inuu ilaahay masiirkiiyo mustaqbalka u wanaajinayo. calaamadaha laba ka mida waynu soo xusnoo waxa weeye inuu towxiidka ilaahay waafajiyo, siduu xadiidkaa saxiixa nabigu ku xusay calayhi salaatu wasalaam. qofka hadalkiisa markuu sii dhimanayo ugu dambeeyo towxiidku laa ilaaha ila allah, jannadu galayaa buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam. waana tii uu kula dadaalayay adeerkii abu aalib markuu sii dhimanayay. kelmaddaa dheb uu lahaa waa kii diiday. qofkuna marka uu sii dhimanayo waxyaabaha loo qabanayay ka midti in agtiisa laga yidhaahdo laa ilaaha ila allah, towxiidka u laqima buu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam qofku marka uu sii dhimanayo. waxaa nebigu xusoo kale calayhi salaatu wasalaam calaamadaha inay ka mid tahay aynu rajo wanaagsan u qabayno qofkan inuu ilaahay jannaynayo, in cimrigiisa inta dambe camal wanaagsan uu ku dadaalo oo jawigiisii hore uu bedelo. idaa araada allahu bicabdihi khayran istacmalah. nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa waxaa ku yihi ilaahay addoonka markuu aakhiro khayr la doono ayaamaha u dambeeyu camal geliyaa, macnaa camal buu waafajiyaa, wuu howlgeliyaa. yuwaafiquhu licamali saalixin uma yaqbiduhu calayh. yuwaafiquhu licamali saalixin qabla mowti. camal wanaagsan buu ilaahay waafajinaya ayaamuhu sii dhimanaya ka hor. waynu aragnaa dad badanoo xaaladoodu isbedesho, soomka, salaada, xajka, sadaqada, cibaadada ku dadaala, markii horena laga yaabo inuu caasi ahaa. marka waa calaamadu wanaagsan buu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam. waxaa ka mid a qofka oo xajka ku dhinta ama isagoo camalkii xajka xidhan, ixraamkii aan idhaahdo, iyo cumradii iyo xajkii, isaga oo adduunyada ka taga. rasuulku sala allahu calayhi wasalam waqtigiisii nin asxaabiya dhintay isaga oo ixraamkii caddaa xidhan. markaa nebigu waxa uu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam in dharkiisaasun lagu duuduubo, dhakadana loo faydo sidii qofka xaajigii madaxa aan u qarin jirin. waxau ihi fa innahu yubcathu yowma alqiyaamati mulabiyan. maalinta qiyaamaha waxaa la soo saari doonaa isagoo talbiyada akhriyaya oo labayk allaahummadii uu ku dhintuunbuu marka dambena ayuu isagoo akhriyaya ilaahay la hor iman doonaa subxaana wa tacala. marka waa calaamo wanaagsan. taa macnaheedu maaha qofku inuu halkaa ka raadsada inuu ku dhintee, waa haddii alla waafajiyo qadartu ay u timaado. waxaa ka mida inuu qofku jihaadka ku dhinto, oo dee aayaadka aynu akhriyayni sida ay tilmaamayaan. qofku haddii isagoo ilaahay daraaddii u dagaalamaya dagaalkii gaalada ku shahiido, isagana calaamadu wanaagsan oo sheegaysa weeye khaatimadiisuna wanaagsantay. waxaa kaluu nabigu inoogu bushaareeyey calayhi salaatu wasalaam haddii fursada inaanu helin jihaadka, qofka niyo wanaagsan niyooda. man sa'ala allaha shahaadatan ballaqahu allahu manaazila shuhadaa'i wa imnaata calaa firaashi. idhaa wallaahi haddii aan jihaadkaa heli lahaa waan kuu shahiidi lahaa,
niyadaasi ay ku jirto furaashkiisaba xataa hadduu ku dhinto ilaahay wuu u aqbalaa buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu gaadhsiiyaa qofkii shahiide halkiisi saxiixu muslim buu xadiid ku sugan yihi calaamooyinka waxaa ka mid a qofku marka uu sii dhimanayo inuu dhidid badani ka daadanayo taasina waa calaamad uu nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam mowtu lmu'mini bicaraqi ljabiin waxa uu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam qofka mu'minka ay markuu dhimanayo calaamadiisu waxa weeye waa inuu dhidid ku yeeshaa dhafoorka siduu nebigu u ahaa calayhi salaatu wasalaam sakaraadkii lagaga safaynayay waa inihii ugu dambeeyey dembiga qofka calaamooyinka waxaa ka mid a inuu qofku dhinto habeenka jumce ama maalinta jimce arrintaa isagoo nebigu ka hadlaya wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam maa min muslimin yamuutu yowma aljumucati aw leylata aljumuca ilaa waqaahu allahu fitnata alqabr hadduu habeenkaa dhinto jumcaha ama maalinka jumce ilaahay wuxuu ka badbaadiyaa balaayada iyo fitnada cadaabalqabriga iyo fashilaada ka timaada marka khaatimo wanaagsan baa loo rajaynayaa xadiidka culimada qaarkood daciif bay ka dhigeen laakiin aimo badan oo albani raximahullah uu ka mid yahay waa saxiix buu leeyahay ama waa xasan bimajmuuci duruqihi marka wadooyinkiisa la isku geeyo calaamooyinka waxaa ka mid a inuu qofku ku dhinto cudurka la ydhaha daacuunka allah inaga badbaadiyo wuxuu ahaa buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam daacuunku cadaab lagu soo daaya ummadihii hore sida reer banu israa'iil oo kale ummaddanna ilaahay waxa uu uga dhigay naxariis buu u yahay saa daraaddeed cidda uu daacuunku halka ay joogaan ugu soo galo ee aan ka cararin ee ilaahay aamine ee ku sabra hadduu qofkaasi ku dhinto kaana lahu ajru shahiid qofka shahiidka abaalmarintiisoo kale u yeelanaya xadiidkii bukhaari waxaa ka mid a calaamooyinka ruuxa dumarka oo ku dhimata umusha aynu inagu waxaynu dhaha way umul aroortay marka ruuxa dumarka ahi xaaladda ay dhashay haddii ay markay foolatay dhasho ay dhimato iyadana waxa uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam inay calaamad wanaagsan tahay waalmar'atu yaqtuluhaa waladuhaa jamcaa shahaada yajuruhaa waladuhaa bisararihi ila aljanna mar haddii ilmaheedii iyadoo dhashay ay ku dhimatay waxa uu mandheerta ula jiidanayaa ilaa jannada buuli waa u shafaaco qaadaya ilaahay shafaaca ayuu uga dhigayaa waxaa kaloo iyadana taa la mid ah inay isku dhimato oo iyadoo weli aan dhalin oo foolanaysa hooyadii ay sidaa ku godgasho aan ilmihii dhalinba wuxuu ku daray markaa waalmar'atu tamuutu bijumcin shahiida ruuxii dumarka ahayd oo iyadoo uurkeedii aan weli umulin ku dhimata iyana waa shahiida buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a almowtu bidaa'i lbatni cudurrada caloosha noocyada kala duwan marka daacuunka laga reebo cudurradii caloosha oo dhan hadduu qofku u dhinto waxaynu u rajaynaynaa inuu noqdo shahiid man yaqtuluhu batnuhu falan yucadaba fii qabri waa sugan yahay xadiidkaasi waa xasan sida uu tirmidi iyo nasaa-i iyo aimo kaleba ay tilmaameen qofka hadduu caloosha u dhinto cadaabalqabri ma laha buu nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam cudurrada caloosha dee qofkii u dhintaana de waa kala duwayno way badan yihin min calaamaati xusni alkhaatima waxaa ka mid a inuu qofkii ku dhinto bilxaraq aw ilgaraq aw ilhadm inuu dableefo ama biyihii uu ku hafto ama gidaar iyo buura ay ku dumaan iyo gebi oo sidaa kadiskaa qofkii uu dhinto haddaanu isagu isku dilin oo qofka ama biyihii isku dilay ama dabkii iskubay ama meel isku dumiya kuma jiro waa qaatilu nafsi baa laydhaha kaasi waa qof isdilay ee waa qofka xaaladani ay ku dhacday isagoo aan sabab ku lahayn nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau ihi dadka shahiidaa waa 5 labadii hore aynu soo sheegnay kii daacuunka iyo kii caloosha iyo saddexdan intaasu israaciyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam iyo qofkii mujaahidka ahaa intaba uu ku wada xusay xadiidka ah waxaa ka mid ah an yamuuta almuslimu bidaa'i sil qofka muslimkaa inuu dhinto cudurkan la yidhaha t b-da ee qofka sanbabadu ay madoobaanayaan kadibna uu neefsan kari waayo sidaana uu ku dhimanayo asilu shahaada buu leeyahy rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiidkaasoo xasana waa wax lagu helo shahaadada iyo shahiidnimada hadduu qofku cudurkaa t b-da u dhinto ama sanbabada qiyaas musaawiya ama la mida waxaa looga qiyaasan karaa cudurkan iminka karoonaha la yidhaahdo khatarta ah isaguna qofka sanbabada
inta uu ku dhufto uu u dhimanayo isagana waxaynu rajaynaynaa qofkii muslimu baynu ka hadlaynaa gaal lagama hadlaye inuu ilaahay shahaado ku siiyo maadaama dhinacaas ay iskaga mid yihiin TB iyo karoonihii sababada ay ku dhacayaan iyo xagga neefta qabanaysa qofka waxa kamid ah waxyaabaha qofka calaamada wanaagsan khaatumada u ah inuu u dhinto qofku an yamuuta almuslimu bidaa'il jamb cudurkan oo fureenka la yiraahdo oo inta qofka la tumaatiyo dhinaca dhiigu sii daynayo iyadana waa xuseen nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkii abi daawud saaxibu daati ljambi shahiid qofka oo fureenka u dhintaa waa shahiid buu nebigu yidhi riwaayo kale almayitu min daati ljambi shahiid waxaa ka mid ah qofka oo muraabidan fii sabiili illaah oo fronta hore ama meelaha cadowga lagu dagaalamayo ayuu difaaca ku jiraayo dadka magaalooyinka ku raaxaysanaya maahee diinta muslimiinta diinta islaamka iyo dalka muslimiintu difaac ugu jiraayo naftiisu hurayo halkaasuu ayuu ku jiraa dhufayska kaana nabigu ku daray calayhi salaatu wasalaam wa umina alfataan xadiidkii muslim ilaahay waxa uu qoraa qofka camalkiisii hadduu dhinto xataa jannadana waa ku soo dhoweeyaa qabriga fitnadii lagu fitnaynayeyna ilaahay waa ka badbaadiyaa waxaa ka mid oo 13aad almowtu fii sabiili اddifaaci can اddiini wاlnafsi wاlmaali wاlahli qofku isagoo difaacaya naftiisa maalkiisa ehelkiisa iyo diintiisa inuu markaas shahiido sida uu xusaya xadiidkii saxiixa ah nabigu yiri man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid waman qutila duuna ahlihi fahuwa shahiid waman qutila duuna diinihi fahuwa shahiid waman qutila duuna damihi fahuwa shahiid intaaba hadduu u dagaalamayo isagoon cid doonanin cidna daandaansanaynin marka dambe daba socota isagoo ilaahay u siciidoo daralla dalkiisa isaga jooga dadkaasi soo doontaa haddii uu intaa difaacayo isaguna shahiid buu noqonaya sida uu xadiid dhowra nebigu ku caddeeyay calayhi salaatu wasalaam waxaa sii iftiiminaya xadiid kaloo saxiixa muslim ku sugana min xadiidi abi hurayra ayaa nebiga ninbaa su-aalay asxaabiyo wuxuu ku yidhi waxaad iga warantaa rasuul allah in jaaa rajulun yuriidu akhda maali hadduu qof yimaado doonayo inuu xoolahayga iga qaado mood iyo nool mid kasta ahaadaan maxaan yeelayaa nebigu wuxuu uhi falaa tuctihi maalak dee xoolahaaga ha siin qaala ara'ayta in qaatalanii qaala qaatilhu hadduu ila dagaalamo ka waran dee la dagaalan buu qaala ara'ayta in qatalanii hadduu idilo ka waran qaala fa anta shahiid dee shahiid baad noqonaysa qaala ara'ayta in qataltuhu qaala huwa fi nnaar ka waran haddaan anigu dilana dee naar buu galayaa buu wuu sii fasiray haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiid kale oo waxau idhi markii uu su-aashaa ninkaasi weydiiye hadduu yimaado qof doonayo xoolahayga inuu iga qaado ka waran wuxuu ihi fadakirhu billaah iska abhiyo ilaahay xusuusiyo bal iska jooji inaad isku day inaad iska waaniso ninkii waa sii wada waxau ihi haddii aanu kuba waantoobin oo abhintaa iyo waanada aanu ku joogsanin ka waran qaala wuxuu ihi fastacin calayhi man xawlaka min almuslimiin bal ummadda kale islaamka iyo ciddii uu qabsoomayo bal hadda erge ka raadiyo ha kaa joojiyaan hadduu kuwaana u qabsoomi waayo ka waran qaala fastacin calayhi suldaan maamulka u tag buuri iyo ciddii markaa fulin awood fulineed leh ee kaa qaban karta tiina uu sii weydiiye wuxuu ihi fa ina asultaanu canii wacajila calay haddii maamulkiina iga fog yahay isna uu igu soo kadiyey qaala wuxuu ihi qaatil duuna maalika xataa takuuna min shuhadaa'i alaakhirati aw tamnaca maalak ama shahiid baad noqon ama waad isdifaaci xoolahaaga difaac buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam waa qof madluuma oo aan daalim ahayn inta laga hadlaya sidaa uu nebigu iftiiminayo ma aha dhaqankeennii intoo dadka geelooda lasoo qaado ama iyaga lasoo laayo intoo guriga la galo la idhaahdo duuna maalihi taasi sax ma aha dulmi aad gashaa lagaa daba socdaa taa oo wixii aad geysatay naf iyo maalba waa lagu daba taagan yaho kacbadu ku nabadgeli waayey ninkii nabiga kaga soo baxsaday calayhi salaatu wasalaam madiina tan laga hadlayaa waxa weeye qof la dulmiyey oo aan waxa isagu dhib a geysaninoo aar loo daba soconaya aanu jirin mar leybana sidaa uu nebigu xusaya calayhi salaatu wasalaam in qofkii kamaaran waa mooyaane laga warwareego intaasoo marxalado lasoo maraa way fiicanta
arrimahaas oo dhami waa calaamado sheegaya qofku xaaladaha markuu dhinto in ay fiican tahay khaatumadiisu ilaahay baanaynu ka rajaynaynaa khaatumo wanaagsan waxaa jira asbaab lixusni alkhaatima si khaatumada ilaahay inoogu wanaajiyo waxyaaba aynu ku dadaalayno sababa ah waxaa ka mid ah alistiqaamatu cala addiin marka horeba inaad duulduulka iyo leexleexadka iska ilaaliso diinta ku toosnaato ina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون آيات كاساكا ورمي بشارة إن مركي بوسود دق دق يسمركا نفط لقى قاضي وحكم إذا حسن الظن بالله إن إنان إلهي ملحهم كما لا يسنين إلهي إن إنه ملونا أكسن مرول بكما لا يسنين إنه نودب بالدافع إنه تشنين إنه نحريس بدنيا هذا عمل كي ودود ذاليا إلهي بأوحي أنا عند ظن عبدي بي anigu addoonkaygu kolba wixii iga maraystaadaan ku dhowa waxaa ka mid ah alla kacabsiga waxa la wixii xaaraana inuu qofku iska daayo noocyadeeda kala duwan waajibkana aanu fudaysanin oonu ka tegin waman yattaqi llaaha yajcal lahu min amrihi yusran ilaahay baa arrimihiisa oo dhan u fudaydinaya waxaa ka mid ah asidq runta shayga la idhaahdo oo runtu samafalkay kugu hagtaa samafalkaasina jannadu kugu hagaabuu nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah atawbatu ila allah وتوبوا إلى الله جميعا إن إلهي الله توبت كنا توبت هذه شرات بديسات كدداش ويوح النبي حسي عليه الصلاة والسلام قف بقول قفت لي أو قان كقاتين إلهي توبت كنا أو ضدك حماكة تجدد وناكسن يدل وناكسن كسي سعلا إن جيرد كتمي سيدنا إلهي وكجاق بلاي توبت دي أو وحي وجيستين لقى ضعف وحكم ذكر الموت وقصر الأمل inaanu qofku had iyo jeer isdaafinin xusuusta geerida iyo aakhiro geerida uu xusuusan yahay aakhiro uu xusuusan yahay yididiladiisa dheer fidsan ilaa meel dambena uu soo yareeyo rubama waxa laga yaabaa inaad caawa berrito sanadkan aad dhimato waxa kamida in uu qofku aad uga cararo wax min asbaab suu'il aaqiba wax kasto la tilmaamay qof inay cirib xumo leeyihiin oo daliilka iyo diintu ay noo sheegeen inuu qofku aad uga durko arrimahaasna kale waxay ka mid yihiin asbaabta khaatumada qofku ay ku hagaagi karto allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittibaa'a wa arina albaatila baatilan warzuqna ijtinaaba اللهم اغفر لنا وارحم والدينا ولجميع المسلمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة